nabadda wadayaal meel kastood joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii gorfaynta geeska. barnaamijka gorfaynta geeska ayaanu ku eegi doonaa dhaqdhaqaaqyada dhinaca aqoonsiga somalilan oo maalin maalinta ka dambeysa sii xoogeysanaya iyo dalal waaweyn oo la sheegay ama la filayo in 18 May inta ka horeysa ay aqoonsadaan somalilan. sidoo kale waxaynu ku eegi doonaa dalka iiraan oo xilligan xiisad culus ay ka dhaxaysa maraykanka iyo israa'iil maxay ku diidan yihiin in somalilan xilligan la aqoonsado. sidoo kale waxa aan ka marnayn barnaamijku intuu socdo arrimo la xidhiidha doorashada soomaaliya iyo go'aamada ay qaateen mucaaridka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi xasan sheekh maxamuud iyo xaaladda dalka etoobiya iyo safarka madaxweynaha dalka taiwan uu ku tegay dalka iswatini ee dhaca bariga koonfurta qaaradda africa. barnaamijka alaba waxaa nagala qayb galoo diyaar u ah doctor ismaaciil fadax oo ah falanqeeyo sare uu fadhigiisu yahay dalka maraykanka si dhowna ula socday arrimahani. ismaaciil soo dhow. waad nasan tahay cabdishakuur adiga iyo shiine iyo guud ahaan dadkana dhegaysanaya iyo axmedba waad nasantihiin. ismaaciilow dee aqoonsigu inugu cusba barnaamijka in badan aqoonsiga somalilan iyo sida ay adduunyada u daraynayso waynu ka hadalnay. maalinta dambeysana aqoonsiga waxaad moodaa inuu dariiqa kusoo jiro tan iyo markii israa'iil dee ay aqoonsatay somalilan. iminkana wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dalal ay ka mid yihiin dowladda imaaraadka carabta oo kale iyo dalal kale waaweyni ay aqoonsanayaan inta ka horeysa 18 May. wararkaasi iyo adduunyadu waxa ay ka tiri iyo maxaad warka haysaa? guud ahaan kolkaad eegtid wixii video ah iyo wixii article iyo guud ahaan wadamada adduunka oo dhan sida imka faransiiska britishka wadamadan even carabta naftooda afrikada guud ahaan kolkaad aragtid si xawliyu ku socdaa maad aragtay aqoonsigii somaliland. kolka ta ugu weyn waxa weeyaan xagga dabada ka riixaysa waa abudabay iyo waxa weeyaan in israel. kolka abudabay iminka waad la socotaa madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan xaggaasuu imka muddo dheerba joogay oo wiigagan 2 cisho ka bacdi uu kasoo laami doonaa baa la yidhi. abudabay waxay ku goosatay in somaliland la aqoonsado 3 waxbaana saaka 4 jaraaido waaweyn iyo ka hadlayay. kow waxay yidhaaheen waxa weeyaan somaliland xagga maad aragtay dhaqaalaha imika 400 iyo waxa la oran jiray 42 milyan bay gasheen dikada. imika waxay gelinayeen ilaa 800 milyan lacagtu xaggaasi gaari doontaa baa la yidhi. ta labaad waad la socotaayoo baasaboorka somaliland waxaa lagu galaa maanta si caadi ah aduda aqoonsigii un bayna sheegin. ta kale ugu weynee wiigan haddana soo baxday waxa weeyaan saadoo la socoto xaggii opec maad aragtay ayay ka baxeen. kolkaa even waxaa loo aaneynayaa oo jaraa'idka ugu dambeeyeen goordhowda akhriyayay middle east jaraa'id la yidhaha wuxuu ku leeyahay opec waxay ku biireen 1967 bay ku biireen kadib kolkii toddobada imaaraad kolkii laysku daray 1971 la aasaasay. kolka muddo dheer bay ku jireen saad la socoto opec waxaa la aasaasay 1960 dee waa almost iyagaana doorka weyn ka ciyaarayay. kolka dagaalkan maad aragtay middle east wuxuu keenay geopolitical iyo economical iyo political social wixii baa adduunkii baa isbedelay. kolka imika waxay ku goosteen qodobka saddexaad ee somaliland ay ku aqoonsanayaan. even waxaa imika rumarka dee nacam waxaa ku jira waxaa laleeyahay inayba wadamada carabta iyo ku bahoobeen sida arab league oo kale islamic oo kale inayba ka baxaan baa laga yaabaa say u socdaan. waxay yidhaaheen waa dad maad aragtay imika matalan iiraan oo kale kolkay waxay ku soo riday 2800 oo drone iyo missiles ku dhex jira iyagaa u badnaa ma garanaysa waxay ku soo rideen. even israel anigii maalinta hore kuu sheegay 7 bay ku rideen. imagine 2800 waxay ku rideen abudabay. kolkaa taasina aad bay ugu xanaaqeen iyo dhaqaalihii adduunkoodee arrintan iminka isbedela awgeed. kolka qodobkaa saddexaadna waxaa la yidhi waa somaliland waxay doonayaan inay ku aqoonsadaan. wadamada kale adiguba saaka waad ka hadashay sida cyprus oo kale greek oo kale south sudan oo kale ethiopia oo kale. ethiopia nafteeda maad aragtay ninkan cagjar waa kan dee isdaad raacinayee hadlay ee yidhi waxaa nacam somaliland dee hadday dowlad noqoto hadda waa nimankii maad aragtay ku shiri jiray nairobi ee dagaalka nimanka xagga sool iyo sanaagna wadeen iyo ka mid ahaayeen maad aragtay even
kan imika dhaartii dhaweyd madaxweynuhu ka hadlayay garaad oo kale laga dhigay de wax weyn waa kan ka degay xamar oo kale macaan waan naqaanaa waxaan kugu sheegay waxan waan naqaanaa waxay gudaan iyo waxay galaan laakiin waktigan imika haddaan soo koobo si xawli ayuu ku socdaa aqoonsiga somaliland ismaaciil waa tahay taa madaxweyne cagtareed ka dhawaajisay markaanba waxaad leedahay gudaha dalka etoobiya xukuumadda abe ayaa dhinaca kale ka wada dhaqdhaqaaqa dhinaca inay aqoonsato oo kale taasaana ka dhawaajisay mar hadduu yahay deegaankii soomaalidu madaxweyne ka yahay dadkan la aqoonsanayaana ay yihiin dad isku luuqad iyo afka soomaaliga ka wada hadlaan taasuu kasii hortegaya baad is leedahay miya ha iyo waxaa jirta arrimo waaweyn baa ka socda iminka maad aragtay ethiopia dhexdeeda ethiopia iminka bisha june yaa loo dareeri doona oo doorashada wadaga la socda kow talabaad iminka ma arkin iminka sudan yaa lagu shiray maalin dhaweyd xagga burhaan dhankiisa maad aragtay waxaa shiray nimanka faanada la yidhaaho kuwa t d f ee tigreega iyo wallagaaga iyo weliba waxaa ku jiray ugada national liberation front maadaaba xaggaa joogay oo kuwa kale way isqarinayeen isagaaba isa soo saaray isagoo hadlaya maad aragtay kolka taasina waxaa la rabaa xaggan kale saan ku odhan jiray in front kale lagaga furo xaggan nacamde somali region iyo kolka arrintaasi nimanka expertiga la taliya waxay yidhaaheen waxa kaliyaad ee dawow noqonaysa waa somaliland oo de si fiican aan aqoonsano oo iyaguna maad aragtay dekedan aan isticmaalno oon xaggaa maad kolka mustafe uu isdaad raacinaya waxaasuu la socdaa maad aragtay arrimahaasuu la socdaa kolka jabuuti iyo magaranaysaa soomaaliyana waxay ka qaadeen wejigabax bay ka qaadeen imika ethiopiana imika eeg kolkii hore waxaa lalahaa imikadan ba lama garan karo inuu dagaalku bilaamayo because wiigii dhaweyd ninka la yidhaaho taadhasa warade xagga ethiopia tigray waxay yidhaaheen ma aqbalina qoladii tigray nacam de madaxweynimadiis maba naqaana bay yidhaaheen federal systemka original state baa nahay bay yidhaaheen kolka taasina waxay keenaysa kolkii hore waxaa lalahaa dagaal baa bilaamaya laakiin maraykankii baa dhexgalay wafdi ay u direen xaggan maad aragtay waxay u direen ambassadorkooga iyo high level delegation baa tegey waxay tegeen makale bay tegeen waxay ku yidhahan dagaal uma baanin waqtiga imika dagaal kaloo ka weyn baan ku jirnaa kolka taasaa la moodaa inay xakisay laakiin dagaalku inuu bilaamo anytime baa yaa dhici kartaa kolkaas somaliland waxay noqotay meel iyaga ma garanaysa waxu taraysa oo dee geopolitics iyo meelay wax kala soo degaan imikadan wararka sare socda dee israel iyo weliba way ku goosteen abudabey iyo abudabeyna waad la socotaa abudabey iyo ma garanaysaa ethiopia waa the biggest ally there waxaa imikaas kusoo biirtay israel baa kusoo biirtay kolka xaggan berbere inay soo gaadhaan ay hubka kasoo dejistaan ay sida kalena alaabahoo dhan ay kasoo dejistaan way ku goosteen waa tahay ismaaciilow madaxweynihii hore ee somaliland amaan idhaha madaxweynihii labaad allah u naxariistay marxuum maxamed xaaji ibrahim xigaar oo sanad guuradiisii markuu geeriyooday 24 sano kadib ku beegan tahay taariikh ahaan maxamed ibrahim xigaar maxaad ku sifayn lahayd ama aynu ku xusi karnaa ku qiimeyn karta su-aashaasi waa su-aal walaal kulliga dadkeennoo dhan qaali nagu ah maad aragtay maxamed xaaji ibrahim cigaal ilaa u naxariistee wuxuu geeriyooday maantoo kale maad aragtay may oo 2000 iyo magaranaysaa wuxuu geeriyooday 2002 buu geeriyooday kolka saad u taqaano waxay jaraa'idku waxay aad uga qorayeen waagii uu dhintay baan ka hadlayaa inuu ahaa maad aragtay rugcadaa weyn oo siyaasi ah inuu ahaa maad aragtay waxaan la yidhaaho state building iyo nation building iyo ma garanaysa waxaas inuu ka shaqeeyey inuu sida imka maraykanka waxaa la yidhaahaa founding father maad aragtay odayaashii dhisoo kale sida imka washington oo kale saasuu u ahaa wuxuu dhisay hay-adihii isagaa dhisay nacam dee wax la tirin karayn buu sameeyey karansiga lacagta isagaa bedelay labadan garanaysaa imka gurtidan iyo xagga baarlamaanka isagaa sameeyey wuxuu ahaa oday ma garanaysa brilliant ah oo wuxuu create garay wuxuu isku dhafay maad aragtay ninka Pierre Grenier la yidhaha ee Faransiiska buuga ka qoray uu ku soo saaray ma garanaysaa wuxuu ahaa cigaal ninka keliyaata ilaa u naxariistee wuxuu ahaa ee isku keenay traditional indigenous maad aragtay systemkii homegrown pastoral democracy oo imlu sheegayay iyo nation statekii westerniga laga dhaxlay
qofkii isku dhafay ee isku keenay buu ahaa ee dastuurka sameeyey garanaysaa ee hay-ado u sameeyey ee currency u sameeyey ee hukadhig sameeyey maad aragtay ee labadan maanta dadka somaliland ay ku caanamaaleen meesha ka dhisay iyuu ahaa kolka anigu waxaan odhan lahaa inaan taallo weyn maad aragtay airporta iyo wax yar yar maahine maxamed cajib raacigaal maalintuu dhintay ilaa naxariistee nin oday baarlamaanka kula jiray baa la wareysanaya waxaa koonfurta wuxuu yidhi maxamed cajib raacigaal wuxuu ku horreeyey 100 sannadood dadka ka horreeyey garanaysa kolka wuxuu ahaa qof aftahana oo dee magaranaysaa dhaqankii soomaalida si fiican u yaqaana wuxuu ahaa qof diinta si fiican u garanaya oo aayaduu magaranaysaa soo koodgaran jiray sida nimanka sheekhda sheegta oo kale wuxuu ahaa nin westerniga fahmi buu ahaa wuxuu ahaa waktigiisa dadkii ugu horreeyey magaranaysaa soomaalida ee jaamacad magaranaysaa london ka soo baxay buu ahaa kolka haddana wuxuu ahaa qof wax ku dhaclay maad aragtay anugu haddaan kusoo koobo malla sanaawi baa la kulmay waa cabdilmajiid dr cabdilmajiid xuseen baa nooga sheekeynaya maalin kolkaasuu ku yidhi matalan dee wuxuu moodayey qof dee maarkin dee iska dee loo yeedayo dee laga roo sidee kuwii hor looreeyey koonfurta ka imanayay buu moodayey intuu saa eegay buu yidhi with all your respect mr prime minister when you were at the 8th grade kolkaad gradeka sideedaad dhiganaysay I used to shine horn of Africa maad aragtay xagga Soomaali galbeed wuxuu ka qabtay waad garanaysaa xaggan kale maad aragtay Kenya waxyaabuu ka qabtay waad la socotaa kolkaa nacam sheekadiisa ma dhammaynayna wax weeyaanuun Somaliland isagoo kale odayga kale ma garanaysaa ilaa naxariistee cali waraab oo kale sheekh madar oo kale dadkaasi waxa weeyaan maxamed xaashi oo kale iyo dadkii dagaalamayba dadkaasi waa dad ina taariikh si gaara maad aragtay oo museuma loo sameeyo u baahan yahay ismaaciilow waad mahadsantahay taariikhdiisa wasaad sheegto lagama gayoonayo haddaynu dhinacayo somaliland kusoo noqono muddo kordhinayay sameeyeen golaha guurtida somaliland 7 bilooda golayaasha wakiilada iyo deegaanka arrimahan aqoonsiga iyo dhaqaaqada dhinacan kale aqoonsiga baa ka socda adduunyadu waxyaabaha ay somaliland ku ammaanaan wax kamid ah arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka laakiin waxaa calaamad su-aal oo markasta dhacday muddo kordhin la sameeyo taasi waxay ku tahay bay yidhahdaan calaamad ama boog ku taala dimuqraadiyaddaasi somaliland ay lagu majeerto arrintan maalintii dhaweyd dhacdayna waxay loo arkaa in ay ka badan tahay ama muddooyinkii la kordhin jiray muddo ka badan maxay saameyn ku yeelan kartaa geedi socodka dhinaca iyo aqoonsiga somaliland iyo horumarka muuqda ee somaliland ee hadda adduunyadu ay arkayso iyo tallaabadan ay golaha guursidu qaadeen waxaa iban ka hadashay haweeney britisha ka hadashay oo tiri waxaasoo kale wax la aqbalo maaha sadoo la socoto 27 bilood iyay kordhisteen magaranaysaa labada grupba dee ay ku biirsadeen somalilandina maaragtay dee dhaawac weyn bay u geysanaysaa dee waa la odhan karaa magaranaysa xagga dimuqrasiga meeshana walaal baahi badan baa jirta baahi aad weyn baa jirta dee dadkan meesha siyaasadda ku yimid iyo dee haddada aad loo eego iyo waxay u baahan tahay shaqo dhan oo dee baaritaan weyn bay u baahan tahay even kolka la yidhaaho guriga gurtidoo kale matalan dee dadka maanta soo galaya waa dad aabihii buu ka dhexlayaabaa la odhanaya waxyaaba caynkaas waa dee shaqo dheer bay u baahan tahay walaal waqti imika wixii oonan loo hayn dee xalna lama dhaliili karo layskama hadli karo magaran laakiin ma wanaagsanayn maad aragtay even madaxweynuhu cabdiraxmaan ciro waxaa laga hayay isagoo le maad aragtay anigu haddaan imaado nacam dowladda haddaan qabsado nacam dowladda haddaan maamulo ma samaynayo wax la yidhaaho ma kordhinayo waxaasuu lahaa laakiin wixii oo soo dhan way isburiyeen maad aragtay waxaana dee waa lagu yaqaanaa laakiin kolka la barbar dhigo wadamadan meeshan aan ku noolahay iyo guud ahaan afrikaba somaliland waa mucjisadee democracia intaasina I think inay kasoo kamid doontaan malanaya ismaaciil iran oo aynu la wada soconno oo xaalad dagaal ku jirta oo hogaamiyahoogii muddada dheer hogaaminayay la dilay ayaa dhowaan waxay sheegtay inay aqoonsiga somaliland kasoo horjeedo dadku waxay isweydiinayaan iran yadii baaba teedu taagna oo dubaabadii maraykanka iyo israa'iil ay meel kasta ka joogaan iyadoo iska difaacaysa haddana marka xaaladaasi lagu sugan yahay maxaa keenay in aqoonsiga somaliland ay sidaa uga hadasho maxaa keenay ay dadku isweydiinayaan iran waxay uga soo horjees waxa weeyaan iyadu iminka
san maalinta horena ka hadalnay laba meelood baa noqotay meel dee geopoliticsiga geographica politicsiga meel mucjisa mid waa hormuus bay noqotay iyo midda kalena waa baadelmandab kolkaa eeg waagii hore waa kii dee waxaa sidii kolkii Iraq oo kale dagaalku ka socday 2003 oo kale dagaalada dee si dee conventional loo dagaalamayay kolkii imika waa la bedelay waxaa laga dhigay drone iyo magaranaysa missile laga dhigay in artificial intelligence baa lagu dagaalamaya I mean adduunkii uu isbedelayaa maad aragtay kolka iyagu imika meeshan ay usoo socdaan meeshan usoo socdaan even Egypt maad aragtay waxay dhexdhexaadistay Eritrea iyo waxay dhex gashay kale qoladan maad aragtay in Eritreanka kolka waxaad moodaa qolooyinkan Somaliland ka soo horjeedo dhani inay rabaan maad aragtay inay Somaliland ay badda casna camday hadeeg Somaliland day badda cas way 850 kilomitir bay ku leedahay waxay doonayaan waxay diidayaan Ethiopia inay timaado in Abu Dhabi inay timaado waa kan dee Sacuudiga Abu Dhabi inay isku hayaan kolka wadamada oo dhani waa meel waxa keenaysa waa geopolitical interest ka keenaya kolka qolada nimanka eeg waxa ku dagaalama Sudan qoladan Al-Burhanka iyo ninkan kale Maxamed Dagalo la yiraahdo kolka qoladan ma aragtay qoladan Al-Burhanka waxa ka dambeeya oo drone ka siiya waa Iraniinta even Ethiopia imika Ethiopia way fahantay waa waxaan imika Somaliland degdeg ay doonaysa inay ugu aqoonsato waxay aragtay nimankii Tigreega maalintii dhaweyd imika maalintii Khamiistii ku dhawaaqay Pretoria wixii magaranaysa shirkii wixii ay ku heshiiyeen wuxuu noqday xalay dhaleybay yaan ka dhignay waan wala baabi'inay waxba kama jira waxa oo dhan leeyihiin drone-ka Iran bay ka heleen kolka Iran waxay noqotay qolo kale oo ku soo biirtay xaggan kale maad aragtay iyay noqotay oo iyagu dee gaashaanbuurkan nacamde alliance kan bay iyo xoogeynayaan laakiin Maraykanka in Abu Dhabi Ethiopia in qolooyinkaasoo dhan bay u socdaan maad aragtay South Sudan oo kale in wadamada imika European oo kale imika matala haddaan maanta dhegaysatid you cannot believe it qoladan imika even Britishka imika baarlamaanka dib bay uga hadli doonaan wiilka dhexdiisa arrinta Somaliland waxaa kaloo iyaguna ka hadli doonaa qolada Faransiisku 3 barnaamij bay wiigan ka samaysay arrinta Somaliland Le Monde ma aragtay adoo haddaan kuu soo koobo waxa weeyaan waa geopoliticsiga iyo geostrategiga ka socda unbay Iiraana wata ugu weyn ee indhaha ku haysana wax kala maahine waa baadelmandab waa waxay Somaliland in uga soo horjeedo iyo aqoonsiga Israel ismaaciil dhinaca Soomaaliya qalalaasa siyaasadeed ayaa ka jira golagoshii madaxweynaha Soomaaliya oo dhigayna mucaaradkii way ku diideen dhinaca kale waxaa jira in xaaladda ay ka soo korodhay arrintii bulcadbadeeda Soomaalida oo imika aad moodaba in xaaladdu ay kasii darayso oo maraakiibna ay qafaasheen kuwo kalena ay dirqi kaga badbaadeen xilli dariiqi weynaayo Hormus uu ilaa hadda uu xiran yahay arrimahaas markaad eegtay xaaladda Soomaaliya maxay muujinaysaa ko waxa ka hadhay 2 week baa ka hadhay waqtigii ma garanaysaa termigii uu maamulayay Xasan Sheekh way u dhamaatay 2 week baa ka hadhay wuxuu rabay inuu maadaragtay wuxuu la hadlay odayaashu la hadlay wuxuu la hadlay dadka civic society-ga Sheekh group kastu la hadlay si uu nacamde isaga iyo qoladan mucaaradka loo dhexdhexaadiyo laakiin mucaaradkii way ku gacmasaydeen waxay yidheen anagu waxaa maaqbalay inuu way diidan yihiin iyaguna waxay ku soo xidheen 2 wax ta ugu horeysa waxay ku yidhaaheen one man one vote ku sheegaya dee qof iyo codkii ma dhici karayso waqtigan iminka waa ina sidii waagi hore taandhadii xalana la hoos tago oo gacantaaga lagu doorto wixii dee magaranaysaa lacagaha arrimaha dibadduna ay ka imanayeen ee la kala iibsanayay tiiba mid waa inay noqoto ta kale waxay yidhaaheen constitutionka maad aragtay uu sheeganayay dee uu baarlamaaga intuu reerkiisa soo kaxaystay uu dhaafsaday taana ma aqbalayno labadaa waa inuu ka noqda publicly waa inuu sheegaa hadduu labadaa yidhaaho inaan de waxba dee kama jiraan hadduu yidhaaho nullify hadduu ka dhigo then waan aqbalayno kolka waxay u eg tahay un even lafagareen oo maalintii hore dee meesha uu ka cararay yaa la wareysanayay wuxuu lahaa anigaa weli ah madaxweynaha walaal waxa weeyaan qolooyinka dadka aad u kurgala ee siyaasadda adduunka maanta aragtay waxyaabaha kolkaad aragtay Soomaaliya laga hadlaya waqtigan iminka 90% anuuna khaldamayn wiigii horena aniga ku yidhi waxay noqon doontaa sida maad aragtay Xisbullah oo kale iyo qolooyin maad aragtay sida Iiraaniinta oo kale imika 4 baa la aftuubay ma garanaysaa wiigagan dhexdiisa the last 2-3 weeks waxaanoo dhan waxa ka dambeeya waa Iiraan oo kale ka dambaysa
oo ma garanaysaa qoladan wayna boqolkiiba 90 se wax u socdaan gacanta waxa Soomaaliya ku dhigi doonta maad aragtay al-shabaab westernga naftoodu kolkol waxay odhanayaan haba qabsadaan garan kolka waxay u ekaan doontaa waxay noqon doontaa u ekaan doontaa maahine waxay noqon doontaa sidaa wadamadaas oo kale maad aragtay sida iminka xisbullah oo kale in syria iminka ka soo baxday syria iyo in iraq waxa ka socda waad arkaysaa kolka meel ay ku adeegtaan oo proxy war waxa la yidhaaho nacam dee dagaalada ay kaga duulaan ayay ku dambeyn doontaa Soomaaliya ismaaciilow xaaladda dalka Ethiopia oo la soconayo dhinac TPLF way diidaa arrimihii maamulka Tigray xaalad walaadeed ayaa dhinaca laga cabsi qabaa dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa inay Masar qayb ka tahay mucaaradka Ethiopia inay warinayso arrimahaas markaad eegto Abiy Ahmed iyo xaaladda iminka mucaaradka ka soo horjeeda inta uu leeyahay xaaladda Ethiopia iyadu wejigeegu muxuu yahay kolkaad eegtid Ethiopia waa aniga maalinta horan waa kuu sheegay waxa la yidhaha center periphery baa jira nimankan maad aragtay northga ka yimid siiba maad aragtay Tigreega iyo xabashidu waxay iska dhaadhiciyeen Ethiopia inay iska leeyihiin iminka maamuladay doonayaan inay ku soo ceshaan waa centralization dadka oromadana iyo dadka Soomaalida iyo Gaambeelaha iyo Cafarta dadkan kale kala gedisana meelaha resourciga ugu weyn ee Ethiopia iyaga dega boqolkiiba 8 kolka wax kala ma rabaan waxaanay ku leeyihiin centralization baan soo celinaa way iska garanayaan calankii baan bedelaynaa bay leeyihiin in waagii hore ma garanaysaa dargagana waa anigii maalinta hore kuu sheegay ku yidhi iyo saasay ku afgembiyeen kolka iminka qoladan maaragtay eritreanka koodhe oo weliba kristiyaanka iminka eeg ninkan la yidhaho Isaias kolkuu jabhadda la dagaalamayay kolkii war lama dagaalamin uu dhex galay Eritrean Liberation Front maaragtay Cusmaan Ali Saabo oo kale iyo intuu dhex galay ayuu u basaasayay maaragtay Mareykanka ogaan bay u dhex gasheen qaanyo meel la yidhaho station baa jiro dee xagga asmara oo ku yaalay oo dee xagga mediaga waxaas oo dhan adugu waxaan eeg waa Christianity waa nation state kan ay dhigeen weligeedba dadka iminka eeg boqolkiiba 8 waa Muslim Eritrea waa dad la gumaysto weeyaan ma aqbalayaan iminka Eritrea maanta federal systemku way ka soo horjeedaan wax kale uma soo horjeedaan way garanayaan dadkan inay majority yihiin xaggan kalena intaasoo dhan Sudan bay ku shirtay maalintii dhaweysay nasiib darro aniga kolkii dhaweydna kuu sheegayay nimankan maad aragtay oo ina la sheegana iyagii baa ka degay meesha programka lagu hayana waaba ku kale waa kililada la baabiinayaa laba qodob baa Ethiopia ugu weyn oo ku garanaysaa ku qabsadaan qol kasti qodobka 39 ee dhigaya qolo kasti ayuhuga inay ka taliyaan self determination up to session qodobka labaad waa qodobka 8 oo ilaahu naxariista Cabdilmajiid yaa ka dambeeyay qofka wuxuu leeyahay lu'aalawinad maad aragtay dee nacam regional magaranaysaa the sovereignty legitimacy-ga waxa iskale kililada iminka Ethiopia federaalku male taasay diideen taana inay bedelaan bay rabaan kolka adigu guud ahaan kolka la isku soo koobo waagii dargagana maaragtay waxay ku afgambiyeen iyagoo alliance Tigray Liberation Front iyo Eritrea Liberation Front oo labaduba maaragtay boqolkiiba boqola Christian iyo the nation state-kooda rabeen iyo afgambiyey imikana tiibay rabaan waa waxay Egypt oo kolkii dhaweydna waa ninkii ka hadalay ay drone-ka uga soo qaadiyaan Iiraaniinta laga keenayo waxaasoo dhan kolka waxay doonayaan uu nacam systemkii waagii hore say u soo celin lahaayeen laakiin imika abi smart buu noqday wuxuu sameeyey oromadii oo dhan buu kiciyey imika wuxuu ka tusay meesha inay nimankan constitution iyo dee xeer iyo ay ku socdaan qabiil kolka oromadii buu u tusay imika ninkii wigii dhaweyd ninka labaad ola Oromo Liberation Army maaragtay waxay ka tafirmeen Oromo Liberation Front nimankii ka soo baxaga ninkii labaad ugu weynaa uu isa soo dhibay shalay maana daroton shalay uu isa soo dhibay kolka uu ku soo biiray waxa loo tusay oromadii oo dhan imika doodaha af oromada af xabashiga wareysyada la leeyahay kolkaad dhegaysatay nimanka even macaaridka boqolkiiba 90 waxay ku daba sabteen abi oo kolka hore koranayeen waa dictator kolka waxa la galay uun meel haddana qabiil un baa la galay ugu dambaysa waxa weeyaan imika Oromo Liberation Front way soo sharaxeen inay doorasho galaan waxay ku dagaalamayaan programkooda waxay ku leeyihiin article 39 lagama saari karo Ethiopia constitutionka haddaan anaku dowladda qabsanana waan goosanaynaa bay leeyihiin waa tahay Ismaaciil madaxweynaha
dalka Taiwan ayaa safar ku tagay dalka Eswatini ee qaaradda Afrika. safarkan uu ku tagayaa hore ayuu shaaciyay, laakiin waxaa dib u dhacaasi keenay dowladda Shiinaha oo ayaa waxay qayb ka hayeen in aan hawadooda aan dul marin. cadaadisku Shiinuhu ka cabsanaya maxay tahay? waxa weeyaan waa igra allaha waa tan Somaliland oo kale ku hayaan ma aragtay wixii de one China policy-gaba ka soo horjeeda imka Taiwan oo kale way ka soo horjeedaa, Somaliland oo kale way ka soo horjeedaa, waddankaasi Estonia-guna waa waddan boqortooya. waagi horena waad xasuusanaysaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Kayd iyaaba ka qayb qaato kale xaggaa tagay waqtigaas. kolka adu eeg iminka Angola oo kale de eeg waa waxaan arrimaha Maraykanka didihii iyo Westerniga ee arkeen isku bal say dhinacam Shiinaha iyo qolooyinkan isku ballaadhinayaan adduunka iyo geeska Afrikaba iyo Afrikaba guud ahaanba ayay u arkeen in sidii loo xakameyn lahaa. iminka eeg Shiinuhu waa kuwan de xagga taageera maad aragtay waxay taageeraan qoladan maxay ahayd Eritreanka oo kale. kolka waxa weeyaan saddex wiigii hore saddex waddan baa yidhi airline-ka ninkan garanaysa Taiwan madaxweynahooga Lai ma soo mari karaan. Angola ahayd waa wadamada xiriirka fiican la leh ma garanaysaa Shiinaha. kolka waa exactly waa sidii Taiwan oo kale arrinta Taiwan bay ku xidhayaan, arrinta Somaliland bay ku xidhayaan. kolka imika anuu haddaan maanta Cabdiraxmaan oo kale dadka la talinaya haddaan ahay de waxaan odhan lahaa u yeedhaba madaxweyne boqorka maad aragtay ha yimaadee xaggana. nacam siyaasad caynkaasa oo de Shiinaha sidii loo xakameyn lahaa maad aragtay waa inay even dowladda Somaliland inay ka shaqayso. Ismaaciil Qodax, intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Gorfaynta Geeska. waanu kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo si qiimaha leh aad barnaamijka nogala qayb qaato mar kasta. aad baad mahadsan tahay Cabdishakuur, adiga iyo Shiine iyo Axmed ba waan islaamaya walaal maalin wanaagsan.